maxaad kala socotaan shirkadaha amni ee kreysatay dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ay ugu tala gashay in ay uga qayb qaadato howlgallada iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab waxaynu idin wadaagi doonaa shirkadahan amni oo ay kreysatay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dalka sida tooska looga leeyahay kuwaas oo ka qayb qaadanaya duqeymaha iyo howlgallada kala duwan ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab haddii aynu ku bilowno dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay kreysatay shirkado amni oo laga leeyahay dalka Ukraine kuwaas oo markaas saraakiil ka tirsan dowladda wadankaasi ay ku sugan yihiin gudaha wadanka waxay dowladda federaalka Soomaaliya ay ka caawinayaan howlgallada iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab dowlatus iyo sidoo kale howlgallo qorsheysan oo ay ka fuliyeen gobolka Shabeellada Hoose ayaana waxay ku bartilmaameedsadeen gaadiidyo laga buuxiyay waxyaabaha qarxa kuwaas oo ay kooxda Al-Shabaab u waday magaalada Muqdisho si ay uga fuliso weerar qorsheysan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay kireysatay ilaa 5 sargaal oo markaas laga keenay dalka Turkiga iyo shirkad kuwaas oo markaas loo xil saaray in ay fuliyaan weerarada qorsheysan iyo sidoo kale ka hortagga gaadiidka qaraxyada waxaana sidoo kale muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ay muujinayaan shirkadahan ama sidoo kale saraakiishan oo fulinaya weerar qorsheysan oo lala bartilmaameysanayo gaadiid laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa kuwaas oo ay kooxda Al-Shabaab ay markaas ku doonaysay in ay ka fuliso magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya muuqaalo maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada qabsaday ayaana sidoo kale waxaa la sheegay in saraakiisha howlgalkan qorsheysan fuliyay ay markaas ka soo jeedaan dalka Ukraine dowladda federaalka Soomaaliya ayaana sidoo kale soo kireysatay waxaa la sheegay in shirkadahani ay si toos ah ay u hoostagayaan taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA waxaana sidoo kale ay fulinayaan weerarada qorsheysan oo lagu la dagaalamayo kooxda Al-Shabaab mas'uuliyiinta ayaana sidoo kale waxa ay markaas ay sheegeen in guulo waaweyn la gaaray toddobaadyadii la soo dhaafay sidoo kale tan shirkadahan amni ay markaas qayb weyn ay ka qaateen ka hortagga markaas xiriyooyin ay kooxda Al-Shabaab ay doonaysay in ay qaraxyo ay ka fuliso oo ku yaal iyana gobolka Shabeellada Hoose mid ka mid ah gaadiidka markaas qaraxyada siday oo ay markaas duqeeyeen diyaarado drone sidoo kalena ay markaas ay hagayeen saraakiishan laga keenay dalka Ukraine ayaana sidoo kale waxa laga arkay iyagoo si toos ah u bartilmaameysanaya gaadiidka dagaalka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wax badan waxay ka bedeshay xeeladeeda dagaal iyadoo sidoo kale si xoojisay dagaalka guud ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab gaar ahaan midka ka soconaya gobolka Shabeellada Hoose Al-Shabaab ayaana si aad ah waxa loogu naafeeyay howlgalladii iyo dagaaladii ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose iyadoo deegaanada Sabiid iyo Caanoole iyo Bereeraba markaas kooxda Al-Shabaab looga dilay in ka badan 100 xubnood oo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab wasaaradda difaaca dowladda federaalka Soomaaliya ayaana sidoo kale waxa ay markaas ay sheegtay inay sii xoojin doonto howlgallada guud iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo laga fulinayo deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose dadka qaarkood ayaana durbaba waxay markaas ku bogaadiyeen dadaalada isdaba joogga ah ee dowladda Soomaaliya ay leeyahay taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA ayaana muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu baadigoobayay xeelado kale oo markaas la doonayo in looga hortago gaadiidka qaraxyada sida oo kooxda Al-Shabaab ay inta badan ay ku weeraraan xeriyooyinka ciidanka iyo goobaha kale istiraatiijiga si looga hortago weerarada qorsheysan durbaba waxa markaas muuqanayso in guulo waaweyn la gaaray iyadoo sidoo kale la dareemayo in howlgalladan ay markaas yihiin kuwa aad u qorsheysan lagana hortagayo qaraxyada iyo weerarada qorsheysan oo ay kooxda Al-Shabaab ay ka fulinayaan qaybo ka mid ah gobolada dalka Al-Shabaab ayaana awood ugu badan oo ay haystaan waxay tahay in xeriyooyinka ciidanka inta aysan dagaalka ku galin ka hor ay qaraxyo ay ku weeraraan dhowr jeer oo kala duwan ayaana digniino loo diray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada qaarkood ayaana waxa la sheegay in xeriyaha ay ku sugan yihiin intooda badan loo ogolaaday in ay markaas ku isticmaalaan qaadka ama sidoo kale jaadka kaasoo isaga ah maanduuriye sidoo kalena caqabad markaas inta badan ku ah in ciidamadu ay feejignaan dheeraad ah markaas ay muujiyaan xilliyada ay kooxdu inta badan ay weerarada ay qaado Al-Shabaab ayaana weerarada qorsheysan waxay inta badan ay markaas ay fuliyaan amaba ay qaadaan xilliyada waaberigii hore ah taasoo iyana ah markaas dhabar jab kale
oo ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay la kulmeen. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in arrintaasi cashir ay ka baran laadahay, sidoo kale tan ay markaasi ay ka hortagi laadahay qaraxyada iyo weerarada qorsheysan oo ay kooxdu inta badan ay waaberigii hore ee subaxii ay ku weeraraan xeriyooyinka ciidamada. hase yeeshee xeelad kale ayay dowladdu ay damacsan tahay taasoo la xiriirta in laga hortago inta badan inta aysan qaraxyada fulinin gaadiidka kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale dagaalyahanadooda. dowladda ayaana xeeladan waxay markaasi uga gol leedahay in ay wax badan ay ka bedesho arrinta la xiriirta howlgallada guud ee dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. taliska ciidanka ayada nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA iyo ciidanka booliis militaro iyo kuwa kale ee markaasi booliiska caadiga ah ayaana wax badan waxay ka bedeleen xaaladda ammaan ee magaalada Muqdisho kadib markii la sameeyay feejignaan iyo isku xirnaan dheeraad ah. dowladdu uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana inta badan waxaa lagu ammaanaa guulaha isdaba joogga oo ay markaasi ka gaartay sugitaanka amniga guud ee magaalada Muqdisho. muddooyinkii ugu dambeeyay ma aysan jirin qaraxyo ismiidaamin iyo weeraro ka dhaca hoteelada magaalada Muqdisho. tan iyo markii uu xilku la wareegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud 15 May ee sanadkii 2022 qaraxyada ka dhacay iyo weerarada ka dhacay magaalada Muqdisho waxay ahaayeen kuwo aad u kooban, iyadoona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inta badan lagu ammaanay in uu markaasi wax badan uu ka bedelay xaaladda xasiloon ee magaalada Muqdisho. intooda ugu badan ayaana dowladda Federaalka Soomaaliya waxaa lagu tilmaamay in banaanka magaalada Muqdisho ay uga hortagaan qaraxyada iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab. dhowr jeer oo kala duwan ayaana waxaa gacanta lagu dhigay dagaalyahano iyo saraakiil iyo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo qaarkood duleedka magaalada Muqdisho lagu qabtay halka kuwa kalena gudaha Muqdisho lagu qabtay iyagoo aanan markaasi weli fulinin wax weerar ah. hay'adda nabad sugidda ayaana sidoo kale waxaa lagu ammaanay in ay inta ugu badan ay markaasi iyada door muuqdo oo firfircoon ka qaadatay howlgallada iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, kaasoo intiisa ugu badan markaasi laga fulinayo gobolada dalka. haddii ay guuleysato qorshaha cusub oo dowladda Federaalka Soomaaliya ay diyaarisay kaasoo la xiriira in markaasi furimaha hore lagu weeraro ama sidoo kale banaanka magaalada Muqdisho gaadiidka qaraxyada waxay noqonaysaa guul kale oo soo hooyatay shacabka iyo sidoo kale dowladda Federaalka Soomaaliya. shirkadan laga leeyahay wadanka Ukraine sidoo kalena qaabilsan amniga ayaa waxay tahay shirkad inta badan ka howlgashay wadamada caalamka qaarkood kuwaasoo ay horey argagixiso ay u naafayeen. dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa markana waxay shirkadani u adeegsanaysaa in ay markaasi ay ku fuliso sidii looga hortagi lahaa weerarada qorsheysan iyo sidoo kaleeto inta badan dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxda Al-Shabaab. xogaha shirkadan laga leeyahay dowladda Ukraine ee markaasi howlgallada qorsheysan fulinaysa waxyaabaha ka soo kordhana halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa.